guddigan oo dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan arrimaha la xiriira wacyigelinta bulshada ka hortagga cudurka halista badan ee coronavirus ayaa maanta shir jiraayad oo ay ku qabteen gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in la helay 2 kiis oo cudurka coronavirus la xiriira kaas oo ku dhacay 2 qof oo Soomaaliyeed kuwaasi oo xilliga lagu karantiilayo mid kamid ah goobaha loogu talagalay dadkan in lagu xanaaneeyo sidoo kale waxaa jira dad aad u tiro badan oo xilligan ay baaritaano ku hayaan guddigan kuwaas oo la tilmaamay in looga shakisan yahay halista cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish oo la hadlay saxaafadda ayaa faahfaahin ka bixiyay meelaha iyo sidoo kale goobaha laga helay cudurka coronavirus iyo dadka markaas laga helay cudurkan goobaha ay ku sugan yihiin. waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay 2 kiis ee ugu horeeyay oo positive ah dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo kuwaas oo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan coronavirus-ka waxaa jira 32 kiis oo kale oo suspect ah oo iyagana baaristoodii ay socoto magaalada Kismaayo magaalada Dhobley sidoo kale 22 ceel waaq 4 balad xaawo 14 waxaa nasiib darro marka dadka inta leeg oo markii la isku koobo deegaanka ku nool oo kor u dhaafaya 3 milyan in aanu helay wax qalab ah oo baaritaana oo lagu baaro lagu xaqiijin lahaa cudurka isaga ah 30 xabba in markii hore naloo sheegay haddana aan gacanta ku helay 24 kaas oo 15 loo diray degmada Doolow iyo degmooyinka ku xeeran 9na la keenay Kismaayo waxaan isleeyahay laba tiro xafidi kara maahan tiro looga bogon kara in lagu baarana maaha waxaan guddiga afkiisa anigoo ku hadlaya ugu baaqaya ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku noolba dowlad goboleedka Jubbaland in ay u hoggaansamaan soo jeedinta ay soo jeedinayaan taqaadiirta wasaaradda caafimaadka iyo guddiga loo magacaabay coronavirus-ka inta badan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa heegan la geliyay goobaha caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo dadaal xoogan bixinaysa iyadoo sidoo kale guddi gaar oo loogu talagalay howlahan ka hortagooda ay aad u shaqeynayeen waayadii u dambeysay waxaana haatan soconaya abaabul aad u xoogan iyadoo maanta ay wareegto ka soo baxday guddigan la tilmaamay in gabi ahaanba lagu amray goobaha ganacsiga gaar ahaan maqaayadaha hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo in xilliyada habeenkii la xiro ilaa waaga inta uu ka bariyo taas oo ay tilmaameen in marka looga fogaanayo isu imaatinka bulshada si markaasi ay u fududaato si loo hakiyo ama looga hortago cudurka coronavirus. Aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.